waxaa la soconay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu qaramada midooba ka codsaday in Eritrea laga qaado hubka cunaqabateynta sida ognahana Djibouti Eritrea waxaa ka dhaxeeyo xiisad colaadeed safaaradda Djibouti waxay soo saartay warqad ay walaac kaga muujinayso hadal ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sheegay in ay aad ugu xun yihiin sida dawladda Soomaaliya hadalka ka soo yeeray dawladda Soomaaliya cunaqabateyn laga qaado Eritrea مسؤولين سوجر حلباني سياسيين يعني هل كان كورسنا قاركود وكلا أرتدوا بيهم أدوان وقحهم هاي كي دبلوماسي جاها ولا التنمية كوفدية جيبوتي صوماليا إنه مجدي صاقل أدوان وقحهم هاي مجدي جاسنا واحد صوابي باقشدي مدحونين إنه كتجي إريتريا بوقشada wax dhibaato ah male Soomaaliya waa qaran madax banaan cid ay doontay la xiriiri kartaa laakiin waxa meesha ku jira waxay tahay in wafdigii dawladda Soomaaliya oo horey kaga dhawaaqo cunaqabateynta in laga qaado hubka Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti xolaad baa ka dhaxaysa dhul bay kala haystaan maxaabiis bay kala haystaan oo laga haystaa Djibouti arintaas in aan lagu degdegin oo xitaa dawladda Soomaaliya ay initiative-ka ayadu qaadato oo ay u soo jeediso Eritrea inay dhexdhexaadiso ayada iyo dawladda aan walaalaha nahay ee Djibouti maxaa yeelay Djibouti noolama sinna Eritrea wax dhibaato ay keeni karto ma laha Djibouti dad walaalaha nahay waa shacabkoodii iyo dawladooda waa dad ciidankoodii ragoodii ay joogaan Soomaaliya ay kamid yihiin ciidamada AMISOM ay kamid yihiin oo wax weyn ka taray gobolada dhexe Djibouti dad walaalaana laakiin mushkiladdu waxa weeye dariiqa ay u soo mareen meediyaha in cabashada ay sheegteen inay meediya u soo maraan ma ahayn meediya waa qaldana qaabka loo yirina waa qaldanayd marka waxay ahayd inay qoraal cabasho ah wasaaradda arrimaha dibadda ay u soo maraan wasaaradda arrimaha dibadda inay soo dhigaan safiirkooda warqad ahaan u soo dhigo dawladdu xafiiska wasaaraha timaado dawladdu markaas ay akhriso oo daraasad ka dhax samayso sidii ugu jawaabi lahayd laakiin way degdegeen in ay markiiba cabasho kulul ay meediyaha ay eedda oo dhanna ay saaraan ummadda Soomaaliyeed iyo hogaankooda dawladda Djibouti ku khaldanayd Eritrea iyaduna waxa weeye waan ognahay Eritrea Djibouti dhibaatada dhaxtaala waxa jira dhul Eritreanku Djibouti leedahay oo la haysto waxa jira dad Soomaaliyeed oo reer Djibouti oo la haysto Eritrea ay haysato and I believe madaxweynuhu inuu si hoose kala wala hadlay madaxweynaha Isaias Afwerki uu yiri war arintan in maartay la dajiyo oo ilaan aniga waa aqaan madaxweynaha iskama dhahay cunaqabateynta laga qaaday isagoo aan give and take policy haysanin